بسم الله الرحمن الرحيم نبضي داوضيال إذا لهانتين با كسر دوادة تلفزيون قرن كالسومالي لان سيدو كله كسر دوادة مركله برنامج كي ضدك يدور دوله داوضيال برنامج كان قيبتي سيهرة وحان بسوقة تيوان ورئيسية كل دوان لصية شيء ماموركا يا شعبك غير سومالي لان أما خصوصا جودهان شادية غير سومالي لان يدلك بالجمكا وحان قلبت كسرنا هاي guriga safiirka ama wasadanjiraha Somaliland u qaabilsan dalka Belgiumka ambassador Maxamuud Cabdi Dacar balagu horeyn baan ku soo dhaweeyo barnaamijka dadka iyo dawladooda mudane danjire Jamal aad iyo aad baad mahadsan tahay soo dhawow daawadayaal inta aanan barnaamijka gudagelin bal aan iskiin baro waa kuma Maxamuud Cabdi Dacar xagee uu wax ku bartay xagee uu ka soo shaqeeyay iyo ilaa imika muuqata imika sidaan sheegay wadanjiraha Somaliland u qaabilsan dalka Belgiumka balse taariikhdiisii hore Maxamuud Cabdi Dacar waxa uu waxbarashadiisii asaasiga ahayd ku qaatay magaalada Hargeysa isaga oo dugsiga sarena kaga baxay Sheikh Secondary School Maxamuud Cabdi Dacar waxa uu ahaa dufcadii ugu horeysay ee reer Somaliland kuwaas oo deeq waxbarasho ka hela dalweynaha Mareykanka Maxamuud waxa uu ku diyaariyay shahaadadiisii ugu horeysay ee BA degree jaamacadda Rutgers University halka uu jaamacad uu digriga qaybtii labaadna ku diyaariyay Columbia University Maxamuud waxa uu experience iyo muddo dheerna ka soo shaqeeyay arrimaha caalamiga ah sida xiriirka caalamiga ah iyo kan siyaasadeed ee wadamada u dhaxeeya iyo ururada caalamiga ah sanadihii 1970kii Maxamed waxa uu ururka midowga Afrika u joogay dalka Ethiopia isaga oo ahaa wakiil halka uu sanadihii 80kii u soo digarogtay ariga Switzerland isaga oo halkaana ka ahaa wakiilka midowga Afrika oo fadhiya Switzerland sanadihii 1990kii Maxamuud waxa uu shaqada dib uga bilaabay wadankan hadda aynu ku sugannahay ee Belgiumka halka ilaa 2003diina uu ahaa la taliyaha midowga Yurub ee arrimaha siyaasadda Afrika iminka iyo laga soo bilaabo 2004tiina Maxamuud waa danjiraha Somaliland u qaabilsan dalka Belgiumka Maxamuud miyad malaynaysaa inaan wax ka tagay inta yar hor cararay waqtiga hore iyo sanaanka Jamal waxa weeye si fiican baad u sheegtay si fiican oo aad u fiican baad u sheegtay laakiin waxaan doonayaa inaan ku daro in maaragtay waxoogaa yaro faahfaahista oo taasina ay tahay markii aanu ka baxnay Sheikh Secondary School waxaanu ka baxnay 1961kii markaasi waxaanu ahayn dafcadii ugu horeysay 8 arday laga diro secondary-ga laga diro scholarship ka helay dawladda Mareykanka markaan Mareykankii tagnayna maxaan ku dhahay iskuulo wanaagsan ayaa dhamaantii nala wada geeyay waxa raggaasi ka mid ah Allah naxariisto Ibrahim Megak Abdullahi Gaxnuug Jaamac Abdi Samatar Salabaan Saciid Abdullahi Khayre Maxamed Yuusuf adoo raggii Umar Yare intaasi baan ahayn Mahdi nimankaas markay dafcadii ugu horeysay Somaliland ka tagta ayaan ahayn markaasi iskuulka aan tagay waxa loo jiray Rutgers University oo New Jersey New York agteeda marka dhowr iyo 60kii ayaan ka soo baxay markaasi ma soo noqday markii dambe oo yuuda aan ka shaqeynay ayaan hadana 797kii 17kii ilaa 73kii aan ku noqday Columbia University oo isna New York America oo isna scholarship aan ka helay marka maxaan ku dhahay markaanu deetana iskuulada aan ka soo baxnay ayaa dhamaantayo shaqooyin wanaagsan aanu wada helnay badankooda raggaasi waxay ka shaqeyn jireen international organizations iyo dawladda ragga waxa jecel wax ka weydiiyay
dufcaddii koowaad ama dufcaddii ugu horreysay ee reer somaliland ee deeq waxbarasho ka hela waddan ajnabiya weliba maraykanka arrin yar weliba waktigaa ma aysan ahayn bal maraykanka iyo howlihiisu waxay noo dambeeyaan maxaad u malaynaysaa inay ahayd waxyaabihii ku sahlay in aad noqoto raggii ugu sarreeyey ee la qaatay? waxa weeye taasi xaqiiqdii waxaa noo sahlay waxa weeye iskuulkan ama kasoo baxnay secondary schoolku waa iskuul caana oo aada u wanaagsan oo standardkiisu aada u sarreeyo oo East Africa aada looga yaqaano. waa iskuulkii ay ka baxeen maxamed presidentkeena imika jooga axmed maxamed siiraanyo oo dhowr sannadood nagu horreeyey. markaa iskuulkaasi wuxuu ku caan ahaa xagga tacliinta East Africa oo dhan iyo Commonwealth-ka isaga ugu wanaagsanaan jiray. iskuullada ugu wanaagsan marka xitaa kuwa ingiriiska lagu daro iyo Australia iyo ummadaha waaweyn caankaasa number 1 baanu ahaan jiray amba number 2 iyo Commonwealth oo dhan. marka yacni iskuulkaasi markii de standardkiisii la arkay maaragtay aanu imtixaanadii wada maxaan ugu soo sadgaray Cambridge University la arkay ayaa deetana intaydaasi la doortay. markaasi baanu tagnay America. marka America waqtigaanu tagnay waa runtaayo waqti fog bay ahayd. Maxamed Maraykanka aynu war soo raacnay sheekh aynu joognay sheekh secondary school waaye waa iskuul aad u qurux badan waaye wuxuu ku yaalaa meel buuralaya waa sida oo bilicsan oo dhulkii hooyo waaye oo aanad qala dareemeynin isla markaana aad nafis ku dareemayso. daawadayaal taariikhdu waa waqti dheer waxa weeyaan lixdamaadkii iyo ka hor waagii waddankeena haystay saamadaalo. waaye maxamed bal waxaad wax nooga yara sheegtaa berigaas ay ardayda ahaydeen iskuulka tiradiisa guud ee ardaydu maxaa lagu qiyaasay? waxa weeye iskuulladu waayadaasi way yaraayeen ardaydu way yarayd. marka waxaa lagu qiyaasi jirayna waxay badanaa ahayd standardka. marka waayadaa waxaa jiri jiray intermediate schoolska laba iskuul, mid camuud buu ahaan jiray midna sheekh buu ahaan jiray. marka imtixaanada ay u fadhiistaan ayaa in laga soo qaadi jiray sheekh ina camuud ilaa sodomeeye ayaa gebigiisu ahaa markaa secondary schoolka. elementary waxaan leeyahay intermediate schoolskuna iyagu qudhooduna aada uma yaran. markaa waayadaa secondary schoolka oo keliya ayaa Somaliland jiray. marka intii hore iskuullada waxaa marka laga baxo waxaa la geyn jiray Euro waxaa leeyahay Ingiriiska. laakiin annaku wixii ka dambeeyey wixii waqtiga iyaga ahaa wixii ka dambeeyey America ayaa badankooda mutaqaanimaa soo jiri jiray. dhowr iyo soddon ilaa dhowr iyo konton iskuulla oo secondarygiisu intaay walla waqti foga ma wadaynamo ba ahaydeen hable ma jireen markaa secondary schoolska wadaynamo bay ahayd. waa garta waxaa iyaduna isweydiin mudan kulli waa arrin xiisihiisa leh oo dee waqtigaa fog oo dunida ay isbedeshay. waa sheekh iyo magaaladii quruxda badnayd ee Somaliland. maxamed macallimiinta waxay dhigtaa waxaa inoo muuqanaysa inay wada ajnabi ahaayeen. idinkuna dee intiina wax barataa ku dheegina in kulliba aan magaalooyinku waaweyneyno aan la ilbixino dee dadku u xoolo dhaqata ahaayo miyii laga yimi. sideedaad markiiba ula falgasheen macallimiin ajnabiya iyo waxbarasho iyo laydinka dhaadhiciyey iyadoo aanu maqalno in dadkeennaa hore ay odhan jireen carruurta waa la gaalaysiinayaa? sidee waalidiintu ku yeeleen in laydin qaado oo waddan fog oo gaalo laydin geeyo? horta waa runtaayo macallimiintu waqtigaasi badankoogu waxay ahaan jireen ajnabi bay ahaan jireen, ingiriis bay ahaan jireen, hindi bay ahaan jireen, masaarida mid iyo dhowr bay ahaan jireen, soomaalida 2-3 baa kaga jiray. markaasi laakiin mid baa jirtay oo taasina waxay ahayd maaragtay waxaa la ogaanayay waqtiga iyo waqtiyo aad u ka yaro horreeyey
in tacliintani ay faa'iideen dadka ay u leedahay inay Africa u leedahay waayada hore waa la diidi jiray laakiin waayadii annaku aanu soo gaadhnay marka wax dhibaato jiray may jirin dadkeenuna iyo odayaasha iyo maalinka maanta mujtamacuna Somaliland waxay ogaadeen tacliintu qiimaheegii iyo maalinka maanta maaragtay waxtarkeegii marka waa la dhiiri jiray in maaragtay maxaan ku dhahay dadku iyo dhalinyarada wax la baro oo iskuullada la geeyo marka waqtigan ku soo beegay wax dhibaato maaragtay sidaas u jira waxba ma jirin marka sida awadeed ayaa standardkaasi markii de iskuulladii ay wanaagsanaadeen secondary schoolkuna wanaagsanaadeen ayaa deetana inta dadkaa la xusho ayaa dibadda wax lagu soo bari jiray marka iminka siday tahay oo jaamicadu jiraan dee waadaas jaamicadu ma jirin secondary school ma jirin kaasoo keliya jiri jiray sidaa awadeed baa dibadda aanu tegi jiray haddii aan markale xusuustaada dib yara qaba waaye hadda sheekh waa ka tegaynaa xagga iyo maraykankan ku raac waaye maraykanka markii aad timaadeen waaye waa waddan si walba uga duwan waddanka ka timaadeen waaye horumaray waaye dhaqaale leh cimilada qabow nololka qaarna kululba diintii bedelin dhaqankii bedelin wala ujeedada u timaadeen waxbarasho ahayd oo kulli goobaha waxbarashadu lagu koobnaanayo cunsuriyaddaa jiri karta waxyaaba badan baa jiri karaa arrimaha bulshada sidee baad ula qabsateen si maxaad ka xasuustaa waxyaabihii kugu la yaabka badnaa aad ku aragta maraykanka ee aad inka hosi karto waxaan odhan karayaa horta tacliintaanu lahayn baa tacliin adag ahayd oo secondary schoolska aanu ka helnay khusuusan ajnabigaa noo dhigi jiray soomaalida noo dhigi jiray maxaan ku dhahay standardka wanaagsanaa marka preparation wanaagsan oo lasii diyaargareeyey inaanu dibadda wax kusoo bari karayno ayaa mataqaana maaragtay naloo qabtay ta kale waxaanu ahayn dhalinyaro oo markaasi ku jirta ambition dumuuc uu ku jiro oo doonaya inaynu markaasi waddanka aanu dee ingiriiska aynu ka qabsano inkastoo markaa ingiriisku lixdanka u tegay oo waxaanu jeclay mataqaana maaragtay nin walba inuu waddankii wax usoo baro nin dhakhtar usoo barta nin administrator usoo barta nin macallin usoo barta nin economist usoo barta markaa waxaa jirtay ahamiyadaasi ayaa noo noqotay oo dhiiri gelisa xaqiiqdii inaanan meel walba meelna aanan ka baqin inuu maraykanka tagno meel walba aan tagno wax kusoo barano marka sida awadeed baan maraykanka ku tagay markaa maraykanka markaanu tagnay dadka aad u maasan tahay haddii aan su-aasha ku yar celiyo aan ugu faa'iidaysanayo janiskan qaaligahan qolo kulweyn maxamuud waxaa ku daawanaya bulshadii reer somaliland da-yar haween culimo nooc walba leh gaar ahaan da-yarta waxay xiiseynayaan inay wax ka ogaadaan waaqicigii iyo wacyigii berigaasi maraykanka walow taasi ay waqti dheer u baahan tahay waxaan jeclaan lahaa balaad midyo laba ka xusto waxyaabihii de kugu la yaabka badnaa ee waddan aada weligaa arag maxamuud aad ku aragtay haddii baa jireen wallahi horta waa taasi ku dheed waa su-aal laxaadle weeye waayo adduunyadu markaa sidan may ahayn maanta waxaa jira telefishinkii baa jira waxaa jira internetkii baa jira waxaa jira dayuuradii baa jira waxaa jira meel walba maanta maaragtay waad arkaysa laakiin waayadaasi waxaa jaraa'idka marmarka qaarkood aad ka akrito maahe ama macalinkaaga ku sheega maahe ama raadiyooga aad ka maqasho maahe dee siday adduunyadu maanta u furan tahay umay furayn ha ahaatee marka maaragtay dadka dhalinyarada education wanaagsan la siiyo tacliim wanaagsan la siiyo self confidence ay isku leeyihiin ay doonayaan inay weliba wax sii kororsadaan meel walba way tegi karayaan meel walba waxbay kasoo kororsanayaan markaa sida aawadeed ayaanu xaqiiqdii dooni jiray inaanu dibadda usoo baxno waayo jaamicadana waddankeeni markaa ma jirin secondary schools kale ma jirin institutes kale ma jiro meesha keliya markaa cilmi laga helaya dee waxaa dibadda in loo baxo markaas tan maraykankana aan ku soo gaabiye waa sidaad u sheegto waa waddan weyn waa waddan dee waayada la yaab lahoo dadkaasi siday u dhiseen waddanka ayaa la yaab lahay marka masalan dee maraykan la tago aqala dhaadheer daara dhaadheer wadooyin dee la yaab leh
dad mujtamac raaqiya oo hore u maray waanayna soo dhaweeyeen oo si fiican bay mataqaana maaragtay ayay noo qabteen iskuullo wanaagsan bay dhalgeeyeen wayna xanaanayn jireen annaguna si fiican baan markaa u baranay aanu soo wada noqon impressionska anu markaa maraykanka ka helay waxay ahaayeen dee qaar maaragtay dee waddan wanaagsan iyo dad wanaagsan markaa waxa taa aan ku daray waayada lixdamihii 1960s waxa weeye markii adduunyadu xaqiiqdii adoonayso waqtiyaashii adduunyadu ugu wanaagsanayd soo martay bay ahayd waayo dhaqaalihii adduunyadu markaas ayuu soo kacayay oo dhaqaale wanaagsan ayaa markaasi jira amba maraykan ha ahaato amba yurub ha ahaato amba africa ha ahaato amba asia ha ahaato maxaan ku idhahaayey waqtigaasi africa way u wanaagsanayd waayo 1960skii waxa weeye the years of independence waa sanadihii ay qaadatay xorriyadda africa waxa keliyoo jira uun cold warka wixii la odhan jiray alxarb ulbarid oo waddanada waaweyn markaasi jiray laakiin waddano amba waxaan leeyahay dagaallo waddanada dhexdooda ah oo waayadaa jiray may jirin hadday jireenna dee sida maanta may ahayn ee way yaraayeen markaas maxaan ku idhahay 1960skaas dadka qaarkood iminka dad khusuusan wax qoraa waxay yidhaahaan the golden 60s waxa weeye waqtiyaashii dahabka ahaa the golden 60s markaas aan soo gabagabeeye waxaan doonayaa inaan xaqiiqdii aanan ku faraxsanay inaan idhaa dhowaan bishii hore oo america ku noqday aniga xaaskaygu ayaa jaamicaddaydii ugu horreysay Rutgers University New Jersey ay casuuntay oo yidhaaheen ardaydii ka baxday waaga 50 sannadood ka hortow ayaanu iskugu yeedhaynaa marka ilaahay baan ugu mahadinayaa cumrigaa dheeraaduu na siiyey waanu tagnay waanu maalinkaa maanta waqti wanaagsan baan kusoo qaadanay waanan ka soo noqday haddaan intaa kaga baxo faahfaahinta taariikh nololeedkii maxamuud cabdi dacar aan mar labaad kusoo dhaweeyo barnaamijka maxamuud soo dhawow mar labaad waxa aynu toos u gudageli doonaa barnaamijkii aad maanta martida iigu ahayd dimsutala wanaada marti ku ahaa haddii aan guriga iga joogo midun bay noqon waxaan jecelahay mudane danjire bal horta inaan kaa waraysto shaqada xafiiska aad mas-uulka ka tahay waaye jamaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay waana aad iyo aadna waan kusoo dhaweynayaa adigoo wariyaha tv-ga qaran ah ee u jooga waddanada yurub inta ugu horeysa waxaan doonaya horta inaan halkan salaan aan ka bixiyo oo madaxweynaheena axmed maxamed maxamuud siiraanyo iyo dowladda iyo shacbiga somaliland dhammaantoodaan u faro nabadgelyo waa sidaad u tiriye xafiiska halkan ee somaliland aan u joogo aan u ahay danjiraha shaqooyin badan oo waddanka u xiise leh oo waddanka u faa'iido badan iyo dadkaba ayaanu halkan aanu ka qabanaa markaas inkasta oo keliday halkan aan ku ahay ase aanu doonayno mustaqbalkeega inu haddii alla yidhaha xafiis aynu furro waxa shaqo aan qabtaa waxa weeye shaqo aada u culus la xaqiiqdii oo amba xagga siyaasadda ha noqoto amba xagga diblomasiga ha noqoto ee yurub aynu kula jiro amba xagga iqtisaadiga ha noqoto iyo waxtarka iyo programmeska waddankeennii iyo dadkeennii ay gaarsiiyeen ee qolada EU-da European Unionka la yidhaha midowga yurub ay gaarsiiyaan somaliland markaa shaqadu xaqiiqdii waa shaqo muhiima weeye shaqada halkan lagu qabtaa ta labaad waad og tahayoo iminka magaaladan bruxelles ee aynu joognay caasimadda
belgium waxay noqotay caasimadii yurub weeye markaa waxay noqotay magaalo xaqiiqi weyn oo organizations ha noqoto hay-ada ha noqoto safaarada ha noqoto dad bacmushari ha noqoto kambaniyaasha ugu waaweyn adduunyada ha noqotee halkan jooga oo la shaqeeya maxaanku idhaahayey dowladaha reer yurub markaa waxaad moodaa maanta taladii adduunyada iyo dadkii de ilaahbaa adduunyada u talinaya taa kasooku dadkii awoodda u lahaayee dowladihii waaweynee halkan joogay in wixii qiraare ee ay gaadhayaan inay halkan ku gaadhaan markaa taasi waxayna tusaaleynaysaa inaynu halkan joogno oo inakuna dacwadeennii aynu ula tagno dadka halkaas soo jooga inaynu ka dhaadhicino qadiyadda somalilan dadka somalilan siday usoo halgameen siday xorriyaddoodii ula soo noqdeen siday waddanka ay u dhiseen siday iminka dowladdani ay u dhisayso si karti leh ay ugu dhisayso si arrimaheennaasi maalinkaa maanta maaragta aynu adduunyada aynu ugu fidino oo marka dambana amba dhaqsa haddii aan la yidhaah ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ictiraafkii dhaqso inoo soo gaadho markaas waad og tahayoo ahamiyad gaadha ayay magaaladan ay leedahay markaa intaasina waxaan ku dhex jiraa amba parliamentarianska ha noqdeen amba midooda yurub ha noqdeen amba magaalooyinka waxaan leeyahay hay-adaha waaweyn ha noqdeen taladeennii wixii la gaadhsiin karayo waanu gaadhsiinaa amba in writing iyadoo qoran amba afka amba maalinkaa maanta maaragtay siyaabo fara badan oo saaxiibtinimo ah markaasi waxaad soo gaabiya jamaaloowe aada moodaa oonay og yihiin in somalilan waddan hore u socda oo isa soo dhisay iyo dadkiisu maxamuud bal aragtidooda inta aan usoo noqdo waxaad ka dhawaajisay runtiina ay tahay in waddankan belgiumka xaruntiisa brussels ay tahay magaalada saddexaad ee adduunka u marayn maayo in 3 magaalo wax ka badan ay ka horeeyaan waa meelaha looga arrimiyo dhaqaalaha iyo siyaasadda adduunka khusuusan yurub maxamuud muddo dheer ayaad kasoo shaqeynaysay arrimaha caalamiga maantana nasiib wanaag waxa aad tahay danjiraha somalilan u fadhiya dalkan belgiumka arrimahaas ay shaqada xafiiska maxaa kuu qabsoomay muddada aad ahayd danjiraha waa runtaa waxa weeye horta waxyaalaha inoo qabsoomay waxaa kamid ah waayadii hore ee aynu soomaaliya kasoo go-nay dee waddanka lama ogeyn 1991 iyo intii ku xigtayba inkastoo ijtihaadkeennuna waddanka dhexdiisa ahaa oo aynu dee soo dhisaynay marka waxyaalaha inoo qabsoomay waxa weeye somalilan xaqiiqdii maanta waa la bartay reer yurub aad bay ogyihiin africa aad baa looga ogyahay maraykanka aad baa looga ogyahay markaa raayul caamkii adduunyada waxaad moodaa maanta somalilan haddii la yidhaaho in qofkii uu garanayo somalilan waxay tahay ta kale waxaa lagu garanayaa dimuqraadinimada aynu wadano nabadgelyada aynu horn of africa geeska africa aynu ka keenay dadkeennii siduu u wada shaqaynayo dadkeennii siduu isku daba joogo dadkeennii siday waddankii ay wax uga qabanayaan iyo himadday leeyihiin amba xaggii tacliinta oo la ballaariya ha noqoto amba xaggii maalinkaa maanta maaragtay caafimaadka ha noqoto amba xaggii wadooyinkii waaweynaayo la dhisaya ha noqoto amba xaggii biyahoo la ballaariyo oo dowladdani ay mataqaanaa maaragtay shaqo fara badan ay meelaha ka qabatay arrimahaasi ha noqoto markaas xaqiiqii waxaabad moodaa in somalilan ay imika tahay mithaal example lagu daydo amba xagga nabadgelyada ha noqoto amba xagga degeraanta ha noqoto amba xagga talada ha noqoto isla su-aasha u dheeda haddaynu maxamuud ku yara noqono waxaad ka dhawaajisay mudane danjire in xiriirka uu fiican yahay idin dhexeeya idinka iyo xarunta maamulka yurub oo ay dee si fiican u wada shaqaysaan sida aynu ka warqabnana delegationka ama wase marti sharafta reer somalilan aad bay ugu badan yihiin oo dhowrkii biloodba wasaro iyo waxaa yimaada xildhibaano
weli wax ku oola ama waxa ugu shilis ee maanta nimanka reer Yurub ay arrimihiin haddii ay tahay dhaqaale ahaan, haddii ay tahay waxbarasho ahaan, haddii ay tahay caafimaad ahaan iyo siyaasad ahaanba ay ina tareen oo aad xusi karto maxaa jira? waxa weeye waa runtaa horta maaragtay wufuudeenu aad bay u timaadaa dowladda ka socotaa, aad bay u timaadaa dhowr biloodba marka la joogo wafdi baa yimaada halkan. markaasi waxay ku tusaysaa in ahmiyadda ay noo leedahay Brussels ay ahmiyad weyn ay tahay. waxyaalaha aynu imika ka hayno waxaa ka mid ah marka qawaaniinta adduunyada la eego in dacwadan inaku aanu dhiganay oo in badanna la qoray oo dadkeenu ay qoreen ama dad ajnabi ay qoreen in fiiro gaara loo maanta loo leeyahay oo la leeyahay Somaliland waxa ay ku dacweysaa waa runteeda oo xaq bay u leedahay oo shuruudii maaragtay lagu ictiraafayay way buuxisay iyo wax ka badanba. waxyaalaha kale inoo qabsamay waxa weeye xagga iqtisaadka marka qaado inkasta oo imika uu iqtisaadkeenu wanaagsan yahay oo inaan isku halayn wixii dabadda ka imanayay, laakiin haddana wixii dabadda inooga imanayay amba Yurub ha noqoto ama meel kale ha noqotee si fiican baynu u maamulnaa oo haraga leh. marka taasina waxay keentay in xaqiiqdii sanduuq xitaa gooniya laynoo sameeyo oo imika dowladaha waaweyn sida Ingiriiska oo kale iyo Denmark iyo Netherlands iyo Norway iyo qaar kale oo aan rajaynayna inay dhaqso ugu soo biiraan in maaragtay sanduuq loo sameeyay gaara oo la leeyahay taasina waa siyada sida doonaysaan u maamula, taasina si nidaam loo wanaagsan oo haraga leh ayaynu u maamulnaa. xagga ha noqoto biyaha مثلا لباس الحسابات كورتو وقرنايا إلا دور يطبر مليون بمرلين نسي ولا يبيها مقالوا يكوجوا وين هرجيسة برعو بورمة بربرة خصوصا أنت عصورت بيها كوكعية دولتها مقالوا يككلنا ده كمان مرنا يو مارتي وحلا كمان تخرمت عند خسر لوجو سوكري حكي عفمات كان نقطة حاجة سنة وحي المكيري كرينو وينو كهلا وانا دكتور وزير كلمة عفمات كأد وحقيقي وقشقيا سيدا وزراء كلا مركزي وحوي يعني مارت المستقبل كانوا واحد مدة مستقبل عد وبايرة إنه يهي وحكروا مثل وحيانا مديرنا كلا كميلا حاجة investment إن دخاله ده كلا أجنبي أقول كينا يكشدان ضد بدنا وإيه مادام قوانين تويدية قوانين توانو شرعة سي أي ماركتي ماشي لودي فيو أو قارب بدنا يدور يعني أنا وضن كي أنت تجان أي شقوين أي أبوران أو دوكي أي دشيان مركب واحد مدة إن اللي هاي الديود ولا لا سوماليلاند developing countries كأنت بدنا حكومة ده مورال كاقات سيدا سوشخي daawadayaal waxa aynu weli ku guda jirnaa barnaamijkii dadka iyo dawladooda oo saamareeyada ku sheegay uu maanta marti ugu yahay danjiraha Somaliland u fadhiya dalka Belgiumka. waxaan leeyahay anuu rajaha ka qabaan weyti rajaha reer Yurub ay ka qabaan Somaliland oo mustaqbal leh oo leh xurriyad leh oo independent country madax bannaan aad iyo aad bay weyti dawladaha kale ee adduunyada in badan ayaa rajaynaysa in maaragtay ra'yigaasi ay la qabaan niman fara badan oo qoraaliina oo cid walba leh amba Yurub ha noqoto amba America ha noqoto amba Africa ha noqoto arrimahaasna way ka qoraan waxa la yiraahdaa wadankani wuxuu ku wanaagsan yahay aanu heli doonaa dhaqso heli doonaa in xurriyadiisii loo soo celiyo oo ay madax bannaanaan mustaqil ay noqdaan marka taasi waynu rajaynaynaa in mataqaana maaragtay dhaqsaadii la yiraahdo ay noogu timaado waxaan rajaynaynaa in dhexdeennana wadanka wixii wax walba waxay ka bilaabmaan waa wadanka raganimada aynu keenay ee dibadda laynaga jeceliyo wadan dadkeena keenay dawladda keenay markaasi inaynu taana si xoojino
oynu ku wadno oynu sidaa u shaqayno waa lama horaan weeye. haddaynu intaa kaga baxno midana dil jire dhankii Yurubiyaanka iyo siyaasadihii arrimaha dibadda bal xagga iyo arrimaha bulshada Maxamed dalka Biljamka gaar ahaan magaalada Brussels iyo Antwerp waxaa ku dhaqan jaaliyad reer Somaliland kuwa muddo dheer sii joogay iyo kuwa cusub waa sidee guud ahaan xaalkooda iyo bal sida waddanka ay ugu nool yihiin hadday noqoto xagga waxbarashada la qabsiga luuqadda iyo dhaqanka iyo guud ahaan bal fikir guud naga sii nolosha dadka. su-aashaasi waxa weeye waa su-aal iyaduna aada u wanaagsan weeye waayo halkan inkasta oo jaaliyadda Somaliland halkan joogta anay masalan aanay badnayn marka England iyo la eego iyo America iyo Canada iyo laakiin waa jaaliyad koraysa weeye. marka magaalada ma wada joogaan ee dhowr magaalo ayay ku kala baahsan yihiin. marka xaqiiqdii iyaga dhexdooda cilaaqaadkoodu ugu wanaagsan yahay. cilaaqaadkay iyo attitude-kay dowladda iyo waddanku u hayaan waxa weeye waa aad iyo aad buu wacan yahay. annaguna waxaanu dhiirinaa in maaragtay meeshii aan kala lumin oo Yurub loo kala luminayn in Somalilandersku ay haystaan oo waddankii ay xusuusnaadaan oo in badanna ay doonayaan inay waddankii ay ku noqdaan amba carruurtooda ay ku celiyaan. May baa ka mid ah markaynu xorriyadda aynu qaadanaynu Soomaaliya kasoo goonay bisha May 18 sanad walba halkan baa la iskugu yimaadaa waa la xafladeeyaa waddankiiba lasoo xusuustaa dadkiiba halkaasi isku wada arka qof yar iyo qof weynba. markaasi waxa weeye dad xaqiiqdii aada u shaqaynaya waxaanay ta kale mataqaanaa maaragtay ay ka shaqeeyaan in xoolo la geliyo waddankii. waxaanu iminka doonaynay inaanu hirgelino sida lacag lagu soo ururinayo waddooyinkii masalan tii Ceergaabo tii mataqaanaa maxaan ku dhahaayey Hargeysa iyo Djibouti iyo waddooyinka kalaba in wixii loo ururin karayo loo ururiyo. waan dhiiriyaa in intii la qaban karayo aanu qabano oo xagga waddooyinkana aanu intaanu dhisayno haddii la yidhaha aanu dhisno. marka waa dad nool oo waddankii usoo jeeda weeye oo waddankii maalinkaa maanta mustaqbal kale oo waddankii doonaya inuu magac yeesho uu meel gaaro uu muuqdo oo aanu ragnimo aanu sameyn. diaspora ama qurba joogga reer Somaliland waxay had iyo jeer kaalin xaaliyay ka qaataan arrimaha horumarinta dalka. sidoo kale waxay kaalin xaaliyay ka soo qaateen hadday noqoto kuwii Sacuudiga hadday noqoto qurba jooggeennii walow ay dalkoodii labaad joogeen Djibouti joogay xilligaas dee arrimihii adigu waddankan ama ha lagu helo waddan ama ha lagu horumariye ay kasoo qayb qaateen welina way wadaan. sidaan ka warqabno waa kuwan Ingiriiska dhaqdhaqaaqa ka wada waa awood ay leedahay dadka community-ga dadka jaaliyadda jooga halkan aynu joogno waxay ahayd meeshii banaanbixii ugu weynaa iyo abid la sameeyo laga sameeyey. ma laga yaabaa in muddooyinka soo socda idinka oo iska kaashanaya inaydu soo qaban qaabisaan socod kale ama banaanbax kale oo aydu qadiyadeenu ka hordhigaysaan idinka oo waddamadan kale Yurubtan kaashanaya European Unionka midowga Yurub. programs badan bay leeyihiin jaaliyaddu ay leedahay. anna waan ka qayb galaa waana la socdaa maaragtay wixii programa iyo wixii farsame ay sameynayaan. marka xaqiiqdii sidaad u tidhi raaleyga waaga aanu qabanay bisha 3 waxay ahayd 2013kii 2 sanadood ka horto wuxuu ahaa guul buu ahaa waayo ilaa dhowr kun oo Somalilanders ayaa Yurub oo dhan iskaga yimid amba Ingiriiska ha noqoto amba Dutchka ha noqoto amba Faransiiska iyo Germanka ha noqoto amba Belgiumka ha noqdeen taqaarba Italy ka yimid. markaasi guula ayuu macnihiisuna wuxuu ahaa in la tuso reer Yurub iyo markaasi maxaan ku dhahaayey midowga Yurub in Somaliland ay jirto inay Somaliland ay doonayso dhaqso u doonayso recognition
marka dad fara badan ayaa maaragtay xaqiiqdii cibrad ku qaatay amba saxafiyiintooda ha noqdeen amba dadka caamka ha noqdeen oona weydiiyey somaliland iyo maalinkaa maanta maaragtay information laga weydiiyey somaliland marka haa taasi iyo mid lamidaba diyaar baanu unahay haddii la yidhaha mustaqbalka inaanu qabanno in intii aynu helayno ictiraafka iyo intaynu development helayno iyo intuu aynu tusaaleyno dadkaynu inuu dad isku duuban yahay waddanka gudihiisa iyo dabadiisaba ka diyaar baynu unahay mataqaana maarata inaanu qabanno waa gartay maxamed waxaa aniga guud ahaan intaa igaga dhan weydiimihii aan jeclaa inaan kula wadaago xog waraysigan barnaamijkeena oo gabagabo ku dhow nuguna waayaaraga baa tahay waqti dheer baad waxbarashada dhamaysatay ururo badan baad usoo shaqaysay maxaa tala ah aad usoo jeedin lahayd maanta bulshadeena dhan siyaasiya iyo dhan bulshada waayahay waxaan usoo jeedin lahaa adugu wax cusub maaha xaqiiqdii laakiin haddana waa taladu dee waa tala weeye markaa amba gudaha la joogo amba dibadda hala jooge dadka somaliland waa dad yani shaqeeyey waa dad waddankii dhisay taasi waa la wada ogyahay inaynu sidaa ku wadno waa dad nabadgelyo keenay waa dad keenay deganaan waxyaalahaas oo dhan dadka dibadda jooga iyo waddanada maalinkaa maanta dibaddu amba yurub ha noqdeen amba maraykan ha noqdeen ama meel kale ha noqdeen waa laga dheregsan yahay waa la aada iyo aad baa mataqaana maaragtay lagu haneeyaa somaliland markaasi waxaan anu hadalka kusoo gabagabayn lahaa in shaqadaasi lagu wado in solidaritygaas iyo maalinkaa maanta unityga aynu hayno midnimada aynu hayno aynu sii xoojino aynu ku shaqayno taasi aynoo noqoto sida dastuurkeenu uu yidhi arrinta ugu muhiimsanee aanu qabanayno halkan ugu dambeyn waxaan doonaya inaan ka salaamo nimankii aanu iskuullada ku wada jiri jiray ee aanu amba secondary schoolka ku wada jiri jiray amba aanu weliba class aanu ku wada jiri jiray aanu america aanu wada tagnay marka waayadaasi secondary schoolku wuxuu ahaan jiray dad isku duuban oo culture lahoo isjeceloo saaxiibahoo ilaa imikala markaan tago imika hargeysa amba burco raggii badana aanu ku wada jiri jiray ayaan uga horta doondoontaa maxaan ku idhahaaye oo friendskayga ahaan jiray marka sidaa aawadeed ayaan doonayaa in mataqaana maaragtay salaan dheeraada aan mataqaanaa kaaga baxo jamaal aad iyo aad baad mahadsan tahay shaqo wanaagsanna waddanka waad u haysaa iyo bulshada somaliland dee waxaan doonayaa inaan ku idhaha good luck waxaa guud ahaanba daawadayaal intaasi kaga eeg barnaamijkii dadka iyo dowladooda oo doorkan idinka imanayay dalka Belgiumka waxaa barnaamijka marti iigu ahaa danjiraha Somaliland u fadhiya dalka Belgiumka waxaan idin la socodsiinayay anigoo ah wariye Jamaal Indho tan iyo inta aynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaanu aniga iyo dhammaan howlwadeenada TV-ga qaranka Somaliland idin leenahay amaana Allah iyo isarag dambe